بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan mar labaad kuna soo dhawaada cashar cusub. Waxaan kusoo dhex jirnay maadadeenii javascript. Waxaan marinay chapterkii loobiska ahaa oo soo bilownay. Waxaan soo qaadanay casharkankii ka horreeyey while loop. Insha Allah maanta waxaan qaadan doonaa do while loop. do while loop sidee loo qoraa marka? waxaan isticmaali doonaa 3 step oo kala dambeeya si aynu u qorno do while loop. marka koowaad waxaynu soo qaadaynaa waxa la yiraahdo conditionkii while loop ayaan waxaan leenahay meeshan ma ka saarnaa marka lana intaan highlight garanaynaa conditionkii ahaa while loop waxaan leenahay kad gareen. stepka koowaad waxaynu keenaynaa somewhere here meeshan semicolon. stepka saddexaad stepka koowaad waxaan sameynay while loop conditionkiisii waynu soo qaadnay waxaynu keenay halkan dambe. stepka labaad waxaynu ku darnay semicolon. stepka saddexaad waxaynu tegaynaa meeshii aynu ka soo qaadnay conditionka waxaan ku qoraynaa maxay keywordka do. sidaa waxaan ku haysanaa iminka do while loop. haddaan save garayno oo aan tagno meeshii inoo yaalay do while loop aan run garayno waxaan haysanaa 0 buu ka biloobay ilaa wuxuu waday 100 oo sidii while loop. kaliya waxaan sameynay conditionkii baynu soo qaadnay waxaan keenay halkan dambe semicolon baan raacinay meeshii aan condition ka soo qaadnayna waxaan dhignay do. difference u dhaxeeya markaa do while loopka iyo while loopka maxay? while loopka waxaa horeeya conditionka la eegaya haddii conditionku sax noqdo waxaa la sameynayaa codekii baa la execute garaynaya. haddii uu khalad noqdo conditionku waxba lama execute garanayo. laakiin do while loopku ka duwan yahay taa. do while loopka waxaa horeeya statementiga marka koowaad baa la fulinaya ama conditionku ha ahaado khalad ama ha ahaado sax. marka koowaad one statement baa lagu fulinaya kadib waxaa la eegayaa conditionkaagii sax baa ma khalad ba. haddii uu khalad noqdo halkaas lagu joojinaya haddii uu sax noqdona waa la sii wadi doonaa koor kale. laakiin mar walba maxaa soo baxaya waxa la yiraahdo statementkiga oo lagu fulinaya. iminka haddii aynu khaladno tusaale ahaan oo kale conditionka waxaan niri tusaale ahaan counterka waxaan la kaysinay 100 conditionka iminka waa khalad. haddii aan save garayno waxaa noo soo baxaya 0 kaliya. sababtu maxay tahay statementkiga koowaad isaga waa la fulinaya kadib maxaa la eegayaa conditionka ma sax baa ma khalad ba. statementkiga waa lainoo fuliyey 0 waa la soo saaray marka koowaad kadib maxaa la sameynayaa conditionkii baa la eegaya conditionkii waa maxay khalad buu noqday halkaas lagu hakinay. aan tagno meeshii inoo yaalay kadib aan refresh sameyno waxaynu haysanaa 0. aan eegno markaa while loop. do while loop waxaan nidhi waxaa horeynaya statementkiga maxaa soo baxay marka koowaad waxa lagu keediyey marka koowaad way ku soo baxay initial value. haddaan tagno do while loopkii aan ku noqon haddii aan ku noqono while loopkii iminka haddii aan conditionka khaladno aan yiraahdo counterku wuxuu la mid yahay 100 conditionka iminka waa khalad meeshii baan tagnay intaan refresh sameyno waxay noo soo baxaan fiirin waa maxay waxba ma soo bixin. sababtu maxay tahay waxaa horeeya conditionkii marka koowaad waxaa la eegayaa conditionku inuu sax yahay kadib waxaa la sameynayaa statementiga la fulinaya.